dhageysiga dacwada ka dhanka ah City ee muddada dheer la sugaya lasoo gabagabeeyey sidii ay sheegayaan warar soo baxay. Eedamaan City loo haysto ayaa ah 115 kiis ay ugu weyn tahay jebinta sharciga dhaqaalaha BL-ka, laakiin wax xukun ah lama fulin doono ilaa 2025. Daily Mail waxay sheegtay in xiritaanka doodaha kiiska oo 16 Sebtembar ka bilaabmay xarunta xalinta khilaafaadka caalamiga ah ee London la geeyay guddiga madaxa bannaan Jimcihii si go'aan ay uga qaataan. City ayaa si adag u diiday inay wax qalad ah samaysay, balse waxay wajihi kartaa ganaax adag haddii lagu helo dambiga. Waxaa lagu ciqaabi karaa inay ka harto horyaalka Ingiriiska. Laacibka hore Everton Nottingham Forest waxaa laga jaray dhibco dib markii lagu helay inay jebiyeen sharciga Premier League. Kooxda haysta horyaalka Ingiriiska ayaa lagu eedeeyay jebinta sharciga maaliyadeed intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2018, iyadoo barbar socdaan 35 dacwadood oo ah inay ku guuldareysteen guddigii baaritaanka ee Premier League. Tani markii Sheikh Mansour oo xubin ka ah qoyska boqortooyada Imaaraadka Carabta uu la wareegay kooxda 2008, City waxay noqotay kooxda ugu awoodda badan kubadda cagta Ingiriiska iyadoo ku guuleystay 8 ka mid ah 13 horyaal ee ugu dambeeyay BL-ka, waxaana si xiriir ah u qaadeen afartii ugu dambeysay.